نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد walaalayaal insha allahu tacaala ta'ahurka yar ee maarata saaka dhacay ama rubi saaca oo aad iyo aad baan uga cudurdaaranaynaa sababtoo ah waxa weeyaan qalabka ayaa maarata yani maxaan ku idhahdaa ama manasada ayaa xoogaa qalali naga gaadhay oo aadna arkaysan insha allah saan ula dagaalamayna marka insha allahu tacaala maarata sidaa ku raalli noqda waxaana filahayaa inuu galay muctamarkayagii maalintiisii labaad ee macnaha waxa weeyaan barnaamijyadiisa xiisaha lahaa ayaan halkiina kasii wadanaynaa insha allahu tacaala iyo muxaadarooyinkii qayimka ahaa ee had walba dhan nooga imaanaya insha allahu tacala marka mutanawicaadka iyo tashkiilaadku sidooda ayay u soconayaan haddii ilaaha idmo markaana waxaan soo gaarnay dowrkii macnaha muxaadaradii koowaad ee saakayto ahna ciwaankeedu uu yahay qiimatu waqti shakhsi almu'min qiimaha uu ugu fadhiyo waqtigu qofka muslimka ah noloshiisa qiimaha ay ugu fadhido waqtigu qofka mu'minka ah noloshiisa inta ah qiimaha uu leeyahay bal maraha waxaaba laga yaabaa in waqtigu maaragta yacni qiimo la-aan nagu dhaafee saaka bal waxaan u fadhiisanaynaa inaan waqtigayaga miisaan saarno oon fiirino inuu ku hagaagsan yahay meeshii loogu talagalay ama meel kale uu maray bal haddaba markaa insha allahu tacaala waxaana noogu diyaara duyuuftayada maaragta yani muxaadiriinta ah sheekh axmed xasan mursal oo suudaani ku magac dheer sheekh axmed waxa uu ku dhammaystay marxaladiisa maaragta yacni daraaso ee dugsi dhexe iyo maaragta saraba magaalada maka mukarama ee barakaysan ayuu kaga baxay maaragta yacni dugsi hoose iyo dugsiga dhexe iyo saraba kadibna waxa uu maaragta ku biiray ama uu maaragta yacni galay kuliyat alqur'aani alkariim bijaamica alislaamiya kuliyadda qur'aanka kariimka ah ee jaamica islaamiya ayuu halkaa kaga qalinjabiyey isagoo maaragta yacni darsay dhuuxayna 7 qiraa'o ee macruufka ee qur'aanka kariimka loo aqriyo kadibna maaragta axmed waxa uu maaragta ku laabtay kenya oo ah meesha uu ka yimid wuxuuna noqday daaci magaalada mandheera ah wuxuuna maaragta yacni aasaasay ama uu maaragta yacni maxaan ku dhahdaa salka u dhigay markas islaami oo la yidhaha markas alislaami fii mandheera maaragta markaska ama xurunta islaamka ee mandheera kaasoo markaskaas oo leh maaragta yacni madaaris kala gedisan oo ah mid madrasa islaamiya ah oo taqriiban ay dhigtaan caruur ilaa 700 gaaraysa macnaha weeyaan ay gacanta ku hayaan agoonna maaragta yacni u badan waxaa kaloo jirta madrasa nidaamiya ee dowladdu ictiraafsan tahay isla markaana culumta kale lagu bartiyo tan islaamiga ah labadaba isugu jirta ee ilaa 1200 caruur dhiganaya ay maaragta yacni uu yahay maaragta yacni axmed maaragta mudiir ama maaragta director sida aad maaragta ku taqaanaan 10 sano ayuu halkaa daaci ka ahaa waxaa kaloo sii dheer inuu madrasa taxfiid alqur'aan iyo masaajidka jaamica ah ee weyn ee ku yaala magaalada mandheera uu khatiib ka yahay macruufkana ka ah halkaana waxa uu kusoo jiray muddo 10 sano ah ayuu maaragta yacni camalka uu kusoo jiray maantana martibuu noo yahay si uu noogu qiimeeyo bal wakhtiga qofka mu'minkaahi uu leeyahay inuu miisaan saaro isla markaana aan ogaano ayadoo muddacan ku ah nusuusta isla maaragta yacni qur'aanka iyo sunnada waxaan leenahay sheekh axmed falyatafadal mashkuura الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام على البشير النذير الذي بعثه الله رحمة للعالمين القائل أعمار أمتي ما بين 60 و70 وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaan dhexgelin muxaadarada dhuuxeeda kuwa hore waxaan idin sheegahayaa anaga afka soomaalida in layga fasiix badan yahay wahi qusuur meeshaa ka yimaado in laygu cudur daaro arrinta labaad waxaan is-xasuusinaynaa muxaadarada dhuuxeeda intaan gelin xaqiiqada bani aadamka
anakoo ka shadaal qaadanayna aayadaha qur'aan ka mid ah Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay suuratu al-acraaf walaqad khalaqnaakum ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون aayadahan aan idinku dul akhrinay walaalayaal aas-aaskeen ay tilmaamaysaa qofka bani aadamka aas-aaskiisa iyo wixii la kulmay markii koow adduunkan lagu abuuray markii alla abuuray wixii la kulmay oo karaameen ah soo dhoweyn ah malaa'igta alla xaggeeda kala kulmay iyo wixii cadaawa isla markiina la kulmay iyo wahii arrintiis u dambaysay iyo xaaladda hadda aan taagannahay alla subxaanahu wa tacaala waana abuuray abuuristaynu wanaajiyey jala jalaaluh quruxdan qofka laga hadlayo waa abuuna aadam aabbaheena aadam waaye annaka suuradiisaan wadanaa sidaa darteed alla wuxuuna annakuna la hadlahayaa khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam malaa'igti ayaa alla faray in aadam u sajuudo malaa'igti waa wada sajuudeen ibliis maahan dadkii sajuuday ka mid ma noqonin alla waa weydiiyey subxaanahu wa tacaala maxaa kaa reebay dadka sajuuday inaad ka mid noqotid wuxuu yidhi anaa ka khayr badan waxaad dibad iga abuurtay dhoobaad ka abuurtay anaa ka fadlo badan waa cisyaan ilaah alla subxaana wa taala lagu caasiyo arlada korkeeda laba arrimooduu ka ballaabaday xasad iyo kibir alla subxaanahu wa tacaalaa naxariistiisuu ka fogeeyey samadihii ayaa laga soo dejiyey markaasuu alle ka codsaday ilaahow ii sug ha idilin ilaa qiyaamo laga gaaro alla subxaanahu wa tacaala waa u yeelay markaasuu dhaartay ilaahow fogeyntaad iga fogaysay naxariistaada aadam iyo carruurtiis waddada dhexdeedaan u fadhiisanahaya waddadaada mustaqiimka ah dhexdeedaan u fadhiisanahayaa badax iyo midigaan ugu imaanahayaa hore iyo geedaalaan ugu imaanahayaa ma arki doontid badidooda kuwa kugu shukriyaan inay yihiin waan duufsan doonaa alla subxaanahu wa tacaalaa waa lacnaday asaga iyo wahii raacaba inay ahlu cadaab yihiin ayuu u sheegay
aadam alle subxaanahu wa tacaala wuxuu faray inuu jannada deganaado asaga iyo xaaskiisa barwaaqo iyo bashbash inay ku noolaadaan ayuu alle subxaanahu wa tacaala u sheegay dhib inay arkaynin haraad inay arkaynin gaajo inay arkaynin oo dhar la-aan inay arkaynin wax dhib ay arkaynin jannada deganaada alle subxaanahu wa tacaala yidhi ibliis cidowtinimadii ku jirto sababteeda aadam u imaaday aadam iyo xaaskiisa barwaaqadan ku jiraan ayuu u imaaday wuxuu yidhi aadam war ma haysa allihiina mahayn ilaah maxaa idinka reebay geedan cunitaankeed maxaa idinka reebay aadam wax kasta waa loo baneeyey ilaa geed mucayan oo alle subxaana wa tacaala u tilmaamay aadana garanaya xaawana garanays keliya laga reebay wax kale lagama reebin barwaaqadan cuna ibliis wuxuu yidhi ilaah maxaa idinka reebay geedan cunitaankeeda wax kale ma aha laidinkama reebin geedan cunitaankeeda alle wuxuu diidahay inaad noqotaan malaa'ig aad noqotaan mase weligiin aad waartaan aan weligiin aad dhimanin diidadeeda ayaa alla subxaanahu alla diidan yahay saas darteeda ayaa alla idinka reebay geedan cunitaankeeda alla ma idinla rabo inaad waartaan ma idinla rabo inaad malaa'ig noqotaan sidaa diidadeeda sababteeda ayaa geedan cunitaankeeda idinka reebay waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin waa u dhaartay wuxuu yidhi waan idin nasiixaynayaa runaan idin sheegayaa aadam iyo xawo maxay ka og yihiin khalqa alle addoonkiisa ka mid ah oo been ku dhaaranaya maxay ka og yihiin waa rumaysteen geedkii ay cuneen fadallaahumaa biguruur falamaa daaqa shajarata badad lahumaa saw'aatihima wadafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi iljanna markii geedka cuneen dharkii nuurka ahaa ku daboolna ay wateen ayaa ka duulay dharraantooda bannaanka u soo baxeen markaasa geedihii jannadii inay isku yaan ay damcayaan inay isku asturaan geedihiina waa ka cararaya caleentii geedihiina waa ka cararaysaa alla subxaanahu wa tacaala ayaa la hadlay alam anhakumaa can tilkuma shajara geeddaan sooma idinka reebin cadow shaydaan cadow idin yahay sooma idin sheegin meeshaan markii la taagan yahay waxaad fiirisaa jawaabtii ibliis markii caasinimadiis la weydiiyey iyo jawaabtii asalkeenna aabbaheenna jawaabtiisa ibliis muxuu ku jawaabay horay u madax taagay horay u kibray aabbaheenna muxuu yidhi iyo hooyadeenna aadam iyo xawa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin ilaahay ow naftaayna ayaan dulminay haddaadan noo naxariisin noo dembi dhaafin dadka khasaare ayaan gelaynaa sidaasay ku dhawaaqeen qaala hbituu bacdukum libacdin cadow meeshii jannadii lagu jiray meeshay ahaato ha ahaato samada ha ahaato mise meel kale ha ahaato allah yaqaane subxaanahu wa tacaala jannadii waana laga soo dejiyey dhulkan ayaana loo soo dejiyey oo alle subxaana wa tacaala wuxuu u sheegay ibliis carruurtiisa iyo carruurta aadam inay dhexdooda cadowtinimo taallo iyo aadam carruurtiisa dhexdooda nafteeda inay cadowtinimo taallo adduunkan sidaa ay tahay ayaa alle subxaana wa tacaala u sheegay markaas alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qaala fiiha taxyaw wa fiiha tamuutuun wa minhaa tukhrajuun arladaa korkeedaad ku nolanaysaan waad ku dhex dhimanaysaan waa laydinka soo saari doonaa marxalada aan taaganahay maxaa waay maanta fiiha taxyaw aayad kale alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lama dalamuu wajaءathum rusuluhum bilbaynaat wamaa kanuu liyu'minuu kadalika najzi alqawma almujrimiin dadkii idinka horreeyey markay dulmo faleen waan helaagnay rusushooda ayaa aayado cadcad ula imaaday waa beeniyeen kuwa daalimiinta waxaan ugu abaalmarinaynaa halaag adduun iyo aakhir cadaab ثuma jacalnaakum khalaa'ifa fi اlardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun khitaabkan xaggeenu ay u soo dhacayaa
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ومدهاس أن هلاقني قداشو ذا أيان إذن كدقني كو أرلد خليف كنغضه أرلد الدقاه أيغا كقدب مرا أيان إذن كدقني سدان أفيرنه وحات عمل فليسان وحات سمينيسان ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقتها سنتاغنهي وقتها أدكو جرتد walaalkay muslimka ah waa waqtigaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu daawanaya wuxuu fiirsanaya wax buu ka sugaya arrinta khiyaar ma aha ninbu sidii doono inuu sameeyo macnaheedu ma aha Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu fiirsanaya waxaad la iimaanaysid الرضان أذكى لجود دجيي والأرض وضعها للأنام الرضا علي الله سبحانه وتعالى خلقك أسجى الدجيي نولا شوض وكفالة قاضي دنا هذا دنا أي وكفالة قاضي وح الله وهي أباهيهين نولا هنقطة أنت هنقطة بي هنقطة هرد هنقطة وح الله وهي بني آدم أدون كان أباهنا لها الله سبحانه وتعالى أي كفالة قاضي أدون كان كهجاجي كدياري بني آدم كيا وحلق السجاء مركتاس وحاد دريميسا نولاش إن يتهي نعمة الله سبحانه وتعالى كسيي نعمة الله نسيي بني آدم كسيي وفرصد والله سبحانه وتعالى قفك بني آدم كيف أسيي نولشين باللوغة بالفيري والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون قال له إيالكين الله شضو إذن كسو صاري إذن كوحبة قرنينين وحبة كالأوغين وحبة تركرين عد يرأو هلب أهو لقاضة لقا هي التهيد قال له إذن سيئي أركتئ وهو إذن سيئي وحمغل وهو إذن سيئي وحقرش مها إناد الله كشكر سان درتي ذا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله وعليه إذن أبوري الله إذن أرزاقي الله إذن دلي دونه الله إذن سونولن دونه الرماحس لسو شيء قف سمين كرا قال ذا وهي الله تقرب لها هيان الله وشريك يلها هيان الرماحس لسو شيء قف يلي كرم جراء الله سبحانه وتعالى وكن الزهنية شريك ولا الكي مسلم كأه ولا شيء مسلم ده نولا شاذ وهبة هدي الله سبحانه وتعالى حقي سكاجة إماتي وقت هذا النعمة الله حقي سكاجة إماتي الله فرصة أنو كسيي ساد وح أقرتت ساد وح أكل فهمتت إلى يومنا هذا إلى ما أنت دتك وحبارة دتك أدونك اسكم مشغوليي لنعكس النولا شيء اسكت تعلوجيي إني باران إني وحك جاران إني فهم كجاران وحي قال الله يهين قفك بني آدم سيدي وحكو فهمه نعم وفهمه لكن سيبه وحكو فهمه وقال الله قال شدا سوا نعمة الله سبحانه وتعالى كلجيس أنت سكوها يو فرصة أو وقت أيانا لسيي إن ربنا نجرنه أنا النفتين أنجرنه ربنا وهي نجدونه أنجرنه فليس أندورنه أكتيس كرامة أو أبدئة إن أنكجارنه سيدا درتيد قيمها وقتقو ليه هي وقتك هذا عمرك هذا كفر ليه وإنها تقرتا نولاش قيمة ليه وإنها تفهمتا عمرك هذا واحد كفيرسا وقتك واحد كفيرسا سد حميلات مدقوه الرئيسو وقتك سدك دك أيو لمانا يا ضرور آد أرديس أكله
dabeel ku soo maraysa oo kale ayaa waqtiga dadka ku soo maraya waqtigaada ku soo maraya qofka si kasta ha umr dheeraado laakiin umrigiisa waa yar yahay dhab ahaan umrigaada inuu yar yahay waxaa ku cadaanaysa qofku waxa uu cadaana laba jeer markii malakul mawt qofku ku soo dego ruuxis inuu qabloodo ugu soo dego qofku uu aad iyo aad u garanayaa umrigi adduunku ku soo dhameystay inuu aad iyo aad u yar yahay daqiiqada iyo laxadaad inuu yahay waa arrin mujarab ah la yaqaano arrintaa sidaa darteeda dad badan way ka shalaynahayaan noloshooda horay ay ka shalaynahayaan waqtigii ayaga soo dhaafay waqtigii aad dayaceen ay ka shalaynahayaan ilaahay ka codsanahayaan in arrintooda cumrigooda wax yar dib loo dhigo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika faulaa'ika hum alkhaasiruun dadkii alle inabi rumeeyanow hoolihiin iyo carruurtiin yaa idin mashquulinin ilaah cibaadadiisii daacadiisa yaa idinka mashquulinin ninkii sidaa sameeya waa khasaaray hoolihiina baxsada alla dartiis u baxsada zakada bixiya intii geere midkiin u imaanin ka hor oo yidhaahdo ilaahow haddaad idib dhigi laheed wax yar haddaad dib ii dhigi laheeday noloshayda oo aan sadaqaysto dadka wanaagsan aan ka mid ahaade waa kaa dadka ayagoo naftooda raalli aan ka ahayn wax ilaaha raalli aan ka ahayn ku dhex jiraan dhimanahayaan waa shallaytadooda waa taa rabbi lowlaa akhartana ilaa ajalin qariib hatee waxaa lagu siiyey 70 sano lagu siiyey 50 sano lagu siiyey 80 sano lagu siiyey inteed geysa maxaad ku samaynaysa walaa yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluhaa jawaabtana waa taa qof nafteeda ajasheed haddii imaado alla dib uma dhigahaay jala jalaaluh waxaa laga sheegahayaa sheekhulambiyaa nebiyaasha sheekhooda yani qofkii ugu horreeyey nuux calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi nuux waxaa laga sheegaa markii malakulmowt u imaaday wuxuu weydiiyey adduunka seed ku aragtay yidhi wuxuu yidhi waxaan u arkahayaa daar oo laba iridood leh irid aan ka soo galay midda kalena isla markii aan ka baxay sidaas oo kalean u arkayaa ayuu yidhi sidaasaa laga sheegayaa nuuxna wuxuu nooladay 1000 sano oo 1000 sano oo 50 la ayuu noolaay 950 sano ayuu dadkiisa ku dhex jiray falabitha fiihim 1000 sanatin ilaa 50 caama taa waxaa dheer qofka markuu geeridu ku soo degto oo dareemahay in waqtigiisa aad u yaraa waxaad ku dartaa xaalado qofka bani aadamka caadi soo mari karto qofka jirha ku dheeratay nab waa iska quursaday mase qofka waxaa ku dhahay shil ayaa galay shiluu galay ad xaalado dad badan soo mari karto khaasatan qofkii hadda laga yaabo 50 sano 40 sano gaaro waxaa dhici karta xaalado badan oo ase qofka ismoodo inuu geeriyoonahay ayaa qofka soo mari karta xaaladahaas oo kale laf ahaantay waa ay soo martay tajriba ahaan qofka xaaladahaas marka soo marto wuxuu dareemahayaa ficlan nolosha inay aad u yareeday goobadfalka lagu goobadfalayn inay dembi weyn inuu ahaa muddi yar haddii lagu siin lahaa inaad dadaali laheeday oo dadaal weyn aad bixin laheed ayaa tamaninaysa waa bitajriba lagu garan karaa dadka odayaasha mase qofkii hadda kahor arrintaas soo martay aad buu u garan karaa xaaladda labaad oo qofka u caddaanaysa waqtigiis inuu yaraa qiyaamada markay kacdo
xaqaa'iqda caddaato dadkii qiyaamadii la imaaday banaankana dadka lagu soo dhoobay wax maqan ma laha jannadii waatan naartii waatan khalqigii wax maqan ma laha qofka xaqiiqada ayaa u caddaanaysa xaaladaas marka dadka waxa uu caddaanahay adduunku waxay ku soo nooleeyeen wax yar aan mutaysinin in waqti la dayaco kaannahum yawma yarawna maa yuucaduuna lam yalbathuu ilaa saacatan min nahaar waxay la too yihiin markii dadka qiyaamada arkahayaan waxay la too yihiin ayagoon ku soo nagaanin adduunka ilaa saacad maahayn bal dadka qaar waaba dhaaranahayaan wa yawma taquumu saacatu yuqsimu lmujrimuuna maa labithuu hayra saaca maalinta qiyaamada kacayso mujrimiintu waa dhaaranahayaan adduunku kuma soo nagaanin ilaa saacad maahayn aawi de 80kii sana 100kii sana aawi dadka qaar waxay noolaan jireen ummadihii hore 200 300 800 sana ay noolaan jireen aawi hagay ka baxday khalaas dhinaca labaad lagaa doonahay inaad ka fiirisid cumrigaada iyo waqtigaada waqhii tago wixii waqti ku dhaafo ma suurogelayso in kugu soo noqdo mas aad soo ceshatid wax bedel aad ka helaysidna ma lah saacad kasto laxdo kasto sanad kasto ku soo marayso ma suurobayso in kugu soo noqoto mase bedelkeed aad heshid waqtigaadana waa as cunahayaa saacadahaada waxay cunahayaan maalintaaday cunahayaan maalmahaada waxay cunahayaan bilahaaday cunayaan bilahaada waxay cunahayaan sanadkaaday cunahayaan sanadkii waxay baabi'inahayaan cumrigii dhan ka dhig maalan qof wuxuu jiraa waxa alla u qoray markii hooyadiis oloosheed lagu abuurahay 60 sano inuu noolanahay lixdankii sana 20 sana waxay ku dhammaanaysaa caruurnimo iyo wax qofka asagoo wax dareemaynin wax kala garanay adduunka kala garanaynin ka dhig ninkaas wuxuu jiraa maanta 42 jiraa 45 jiraa meeqaa sana u hartay mithaal waa kii badiya waa 60 jir dad qofkii 60 jir gaara agteen wuxuu ahay nin weyn oo umr dheer la siiyay waa kii noogu dadka ugu roon waa 60 jir 70 jir way oday لحظة سنة هدي لقى قاضو 45 هدي لقى قاضو شان تبنا كوهاريس خلاص شان تبنك سنة بلك جوي شان تبن سنة من نقونيس وهاي نقونيس أفر تبن سنة نقونيس أفر تبن سنة بليالي نقونيس هكذا أخي وقت قاعد السداس أيو أدق هيا سداس أيو كوطاف هيا منو كوسو نقونا هاي waxaa laga sheegay in xasan al-basri la yiraahdo xikmad badana taabiciinta kamid ahaa wuxuu dhihi jiray maalan kasta oo fajrkiisa dhasho ilaa waa naadinahaya ibn aadam anaga waxaan ahay khalqo cusubaan ahay camalkaadana markhaataan ka noqonahaya iga zaad qaado haddaan tago kuguma soo noqonahay ilaa qiyaam الساعة يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة dadka gabayaasha oo carabta ah waxay ka shileen jireen shabaabnimadii tagtay aan la soo ceshin karin alaa layta shabaaba yacuudu yawman fa akhbirhu bima facala almashiibu shabaabnimadii maa soo noqoto aan u sheego duqnimadu waxay ugu fashay waxay ugu samaysay aan u sheegay shalayta maahayna wax kale ma jiraan waqtigu ku dhaafo kuguma soo noqonahay
ha ku talagelin dhinaca saddexaad oo aad ka fiirinayso waqtigaada waxaa waaye shay ugu qaalsan bani aadamka milkiyo waay shayga aad gacantaada ku jiro shayga ugu qaalsan dhab ahaan xoolaha waa ka qaalsan yahay carruurta waa ka qaalsan yahay wax kasta waa ka qaalsan yahay waqtigaada maxaa yeelay waqtigaada wuxuu weel u yahay wax kastoo camal ah soo saar kasta dhan ayuu weel u yahay xaqiiqo ahaan ra'sumaalka qofka bani aadamka ra'sumaalkiisa dhabta ah waaye qofkii garto ha garto qofkii jaahil ka ahdo jaahil ha ka ahaado laakiin dhabta ahaan waqtigaada waxaa waaye ra'sumaalkaada shayga aad gacantaada ku jiro shayga ugu qaalsan dib u fiiri waqtiga khayrka adduun iyo aakhira lagu kasbado waa waqtigaad wax kastoo san wax kastoo wanaagsan wax ilaaha loogu dhowaan lahaa camalkii lagu degi lahaa daarusalaam waa waqtigaan yar adduunka nagu soo marahayo sidaa darteed waxaad arkaysaa waqtigaan yar oo laga yaabo dadka qaar inay u noqdo 20 sano qofka qaar laga yaabo dadka qaar inay ku soo marto 30 sano 40 sano 70 sano 80 waqtigaan yar ayuu qofka mu'minka ah ku mutaysanaya inuu ku helo inuu ku dego daar weligeeda aan baaba'in weligeeda aan dhammaanayn wax kastoo bani aadamka naftiisa ishtahaynaysa lagu helayo daar salaam ilaaha jiiraankiisa jalla jalaaluhu daar naciim waa waqtigaan yar fi nafsi alwaqt waqtigaan yar ayuu ku mutaysanaya ninka gaalka ah ninka mujrimka ah inuu shaqo abadi ah baas aan go'aynin musiibo aan go'aynin inuu qoorta gashto maxaa yeelay ninka mu'minka ah adduunka markuu ku noolaa asiga ma garanayni waqti intuu noolaan doono 100 miyuu noolaan doonaa 30 miyuu noolaan doonaa 80 miyuu noolaanahaya ma garanayo iyadoo sidaa tahay asagoo waqtiga dhimanaha aan garanaynin ayuu naftiis ugu talagalay ilaaha jalla jalaaluhu rillihiis inuu ku taagnaado cibaadadiis inuu ku taagnaado alla amarkiis inuu ku taagnaado ay ku talagalay marka wuxuu la tooyahay qof weligiisa abadul abad ilaaha caabuday ayuu la tooyahay sidaa oo kale ninka kaafirka ah mujrimka caasiga ah oo sidaa ku dhinta wuxuu la tooyahay qof abadul abad alla ku caasiyay ayuu la tooyahay kan wuxuu muteystay muddadii yar asaga niyada goostay oo ku taagnaaday ayuu ku muteystay daarusalaam daar naciim firdows alaclaa ayuu ku muteystay aan dhammaanayn aan laga dhimanaynin aan laga jirinayn aan laga daqoobaynin ayuu muteystay kaasna wuxuu muteystay shaqaa abadi jaxiim oo laa yamuutu fiiha walaa yaxya geerin aan lahayn nolol aan lahayn dadku waxay dhahayaan alwaqtu min dahab waqtiga dahab ayuu ka dhigan yahay laakiin waxaa la dhahayaa bal aqlaa min dahab dahab waa ka weyn yahay waqtiga waana ka qiimo weyn yahay wax kastoo qaalsan wax kastoo qaali ah waxaa ka qaalsan waqtiga xasan albasri ninkii haddii aan soo sheegnay wuxuu leeyahay ibnu aadamow waxaa tahay ayaamo la kulmiyey ayaa tahay sidaadaba ayaamo la ururiyey ayaa tahay mar kastoo maalin tago maalin ku soo dhaafto qaar adaga ka mid ah ayaa kaa tegay xaqiiqadina waa sida ayaamo la ururiyee nahay ayaamihii waa gurmahayaan qaara ku dhaafa marka ayaamihii haddii dhammaadaan maxaa soo harahay adigu ma joogaysid hiblow ma ahaanaysid meedad ahaanaysaa asxaabulqubuurad noqonaysaa waqtigii waa dhammaaday ayaamihii lagugu talagelay in yar in yaray u dhammaanayaan in yar
qofkii waqtiga qiimihiisa adduunka jaahil ka noqdo maalin ayaa korkiis imaan doona oo asaga garan doona qiimaha waqtigu leeyahay qaalnimadu waqtigu leeyahay markaas uu garan doona laakiin waqti oo fursad ku dhaaftay shilaytu waxba aan taraynin markuu qofku geeriyoonahay sidii aan soo marnay iyo markii qiyaamada la gaaro ayaa qofka dareemahaya qiimaha waqtigu ku fadhiyo markii ahlu janno janno galaan ahlu naarna naartooda galaan dhagayso ahlu cadaabka shilaytida ay shilaynayaan oohinta ay ooynayaan dhagayso والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير كوي ألك ديدن kuwii alle ku gaaloobeen waxay leeyihiin jahannam naar jahannam ay leeyihiin lama dhammaynahayn oo ay siday u dhintaan mana naartan lagama khafiifinahay sidaas ayaan mid kasta gaal ugu abaalmarinaynaa ayagoo naarta dhexdeed ku qaylinahayaan gargaar dalbahayaan maxay leeyihiin rabbanaa akhrijnaa nacmal saalihan hayra aladii kunnaa nacmal ilaahow naga saar ilaahu naarta naga bixi aan camal falne adduunka noo celi aan la imaanay camal wanaagsan kii aan adduunka ku soo samaynay khilaafsan aan ahayn ilaahu naarta naga bixi adduunna gey jawaabta waxaa imaanaysa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara waja'akum nadiir war soo cumro ma idin siinin oo qofkii ku xasuustayba ku xasuustay qof idin digahay sooma idin imaanin rusul alla sooma idin imaanin faduuquu famaa lidaalimiina min nasiir nadiir rusushi waa lagu fasiraa dadka culamada qaar waxay ku fasiraan ciro qofkii ciro kuwa iyo jirkiisa kusoo bilaabatay madaxiisa iyo garkiisa oo ciro kusoo bilaabatay macnaha waxaa ku imaaday nadiir oo wax digahay macnaha ahwaashaad waa isbedelaysaa timixii madoobayeen waa caddaadeen maxaa caddeeyey waxay sheegayaan qiso nebiyaashii ka mid ah ayaa waxa uu imaaday nebi yacquub ay ku sheegayaan ayaa malakulmowt ay la sheekaystay markaasuu yidhi warniyow inta markii geeradeeda soo dhawaato intaad ii imaanin ka hor ideg iisoo dir qof iisoo dir oo yidhi hawaayahay waan yeelaya waan kuu soo dirayaa maalmaha ka mid waa kan asagoo ordahay oo yidhi hay ziyaaro miyaad u imaatay mise waa qabloonaysaa naftay qablooshadeeda u imaaday marka hoos yidhi inaan ku qabloodaan u imaaday oo soo ballankeena soo ma ahayn inaad iisoo digtid nacam waa kuu soo digi yidhi waan kuu soo digay waxa kuu digaan kuu soo diray uu yidhi bayaadu shacrika bacda sawaadihi wa dacfu jismika bacda quwatihi wainxinaa'uka bacda istiqaamatik wuxuu yidhi tamahaada caddaadeen markii madoobayeen kadib daciif jirkaada daciifnimadiisa markii xoog lahaa kadib soo godashadaada aada soo godantid markaad toosneed in toosan aad aheday kadib saddexdan ayaan bani aadamka usoo hormarayaa uu yidhi rusushay aan bani aadamka aan uu soo diro saddexdan ay ka dhegan yihiin marka waxyaalaha noo digahayaan alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa rasuulkiisa diintii alla noo soo dejiyey waa qaylo yeeraysa waaye oo anagna loo dhawaaqahay marka walaalayaal
waajibka ka saaran maxaa waay marka ninka caaqilka oo doonahay waqtigiisa inuu ka faa'iideysto waajibka ka saaran waqtigaada maxaa waaye waqtigaada inaad ka faa'iideysatid ku dadaashid sidaad waqtigaad ugu faa'iideysan lahayd aad u ilaalisid sidii xoolaha shilinka maxaa la dhihi jiray koronka iyo dollarka loo xifdiyo ka daran in waqtigaad aad u xifdisid maxaa yeelay waa ka qaalsan yahay shaygu shay ka qaalsan yahay ayuu bani aadamku ku dadaala inuu ilaaliyo haddee dirhamkii diinaar dollarkii waxaa ka qaalsan waqtiga waa inaad ilaalisaa ku dadaalo waqtigaad inaad ka faa'iidaysatid dhammaantiisa wax adduunkaada kugu anfacahay mise wax aakhiradaada kugu anfacahay wax nafciisa kugu soo noqonahay adiga mise ummadaada nafac iyo khayr iyo barako iyo saacado kugu soo noqonahay adduun iyo aakhira anaka haddaan nahay dad muslimiin ah rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray qofka sidii waqtigiis ugu faa'iidaysan lahaa adduuni aakhara qofka si u qabsan lahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam umadiisa waa baray ummadda muxamadiyada ah mamnuucay ka tahay waxa la yidhahda rahbaaniya adduun adigu ku suga inaad ka shaqaysid camirtid aakharana anakayna sugaysaa inaan camirno adduunku waa ku noolnahay waan u baahannahay manfacadiisaad u baahannahay danaheena ayaan u baahannahay shaqadeed anakaynoo taallaa aakhare anakaa u soconaa iidaan degi doonaa shaqadeed camalfalkeeda anakaana laga rabaa adduunaan u go'ayaa sharcigeena ma ogolo aakharaan u go'aya masaajidkaan fadhiisanahaya sharcigeena ma ogolo labadiba aday ku yaan tan adaa u baahan tan adaa u baahan sidaa darteed axaadiista sheegaysa nabigeena calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad ugu booriyey ummaddiisa in ay camal falaan ay shaqeeyaan ay dadaalaan oo adduun iyo aakhiraba kasbadaan wax la tiri kara ma aha nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha hadde axaadiista iyo soo xaadirto waxaa ka mid aan la yaabay sheekh yuusuf alqardaawi kitaabkiisu ku qoray kitaab yar ee qiimatulwaqti la yidhaahdo ku qoray wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii mid qof idinka mid ah gacantiisa tallaal ku jiro qiyaamadana kacaysa haddii ka gaarsiin karo qiyaamada intii kicin dhulka ha ku tallaalo yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam qiyaamadii waa kacawhaysa adagana geed oo tallaala gacantaada ku jira tallaal intii qiyaamada la gaarin ka gaarsi taas maxay tusaysaa in anaka aan nahayna laga rabo adduunka cimaaradeeda anakaana laga rabaa dadka mu'miniinta haddaan nahay noloshan xaqiiqideed anakaan leh macmacaankeed anakaan leh khayrkeed anakaan leh cizaheed muslimiinta leh قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أيها أسكله أدونك آخرنا خالصة أطهي خاصة أطهي قفك لما وذاق هاي أدونك وانا للو وذاق هدينا قبضيان كنت ذلك إيون وناجنت هدينا قبضيان وانا والله يا باينا معاك هدينا قبضيان لكن خالصة يوم القيامة ما حقيقة أهم ولا ليال أدونك معانكيس قفك مؤمن كدريم كلي ورقف قلبكيس دب أكلا ويان أهل عهي قلبكيس أن دقنين قلبكيس مرق إباس إبلايك يعني كأرورتي قفكاس نولاش عنتظ معانك مدريمي كر هذا أدونك مدريمي كر سادرتي دواد أي دبك أتكلها نوشيهين وهذا أركيسان دب بدنا أسدلهاي أنت مواينين guriyaal ma waynin wax ma waynin wax alla wixii naftooda oo shahwaaniga aadiyeen ay rabto waa helahayaan laakiin waa isdilayaan waxay ku roon yihiin ku dadaalahayaan inay mashquul iska dhigaan taasay martay ku moodahayaan maahan dhammaantood mar hore isdhamayn lahaayeen marka waa inaan dadka muslimiinta haddaan nahay waqtigeena ugu faa'iidaysano adduun iyo aakhirad adduunka aan ku qabsano wax alla way faa'iido nooga jirta dadka
soomaalidu waxaa lagu hantaa mas lagu sheegaa shaqo darra meelay joogaan kii wax yar hela hata waxaa weeyaan becshirada ayuu dhaafayaa becshiradu ku ciyaarahayaa mas waa waxaas oo kale ayaa ka dhacda mid shaqo haya shaqadii yasahaya shaqadii ka baxaya markaasoo shaqo la'aan ayuu ku soo dhacaya markaasoo baagamuudo jijiif iblaay shaqada oo na anfacaysa naftaadaad ku dhooraysa caruurtaadaad ku dhooraysa cidaadaad ku dhooraysa muslimiintaad ugu kaalmaynaysa qaraabadaadaad ku xiriirinaysa shaqada adduunka taasa ee laga rabaa inaad ku dadaashid oo ku shaqo xalaal ah aad ku camal fashid oo aad ku shaqaysid ama aakhiradaada sababta aad u joogtid aakhirada waay aakhira sababteedaad adduunka u joogtaa la aqal walaa akthar inaad cuntid war qiimahaada waa ka weyn yahay wax cunitaan iyo wax cabitaan dameeraha iyo ariga iyo kulli waa cunahayaan waa cabahayaan qofka bani aadamka hadduu hamagiisa kaali adduun hel kaali dhar quruxsun kaali cunto hel kaali dhereg hadduu iyaan qofka hadduu arrinta noloshiisa meesha kusoo gaabiyo waa haway nin noloshiisa baaba'day noloshiisa oo dameer oo kale noqotay waay maxaa yeelay bal u fiirso neefka ariga ah waxyaalahaas oo dadkaas caadi samaynayaan waa samayna cunto u baahanaya waa raadsanahaya hataa haddii arigaan og yahay meel daaq leh waa u dhumahaya geela saas oo kale lo'doo kale meeshuu raadsanahaya waa garanahaya biyo u baahday waa cabbahaya rida urgee u baahanaysa waa ka waa raadsanaysa asagana waa raadinahaya waa rimaysa waa dhalaysa anugay la leefaysa waa jeceshahay haddii rig kale kusoo hadgudubto waa ka celinaysaa waa difaacaysa waa naaskada udhigaysa waa nuujinaysa waa korinaysa ilaa ase ka weynaado haddii wax dhib ay aragto waa ka cararaysa noloshan caadiga ah bani aadamka badidooda ku dadaalhayaan xoolaha caadiga waa garanayaan amaa nolosha dhabta ah qofka bani aadamka laga doonahay inuu u hanqaltaago oo ku dadaalo oo u shaqeeyo u amalfalo hiya daaru laakhira nin xasan albasri layidhahdo ninkii haddaan soo sheegnay wuxuu leeyahay adraktu qawman kaanuu calaa awqaatihim ashaddu minkum xirsan calaa dirhamikum wa danaaniirikum waxaan soo gaaray saxaabaduu ku jeedaa waxaan soo gaaray dad ku dadaal badan waktigooda idinkaga dadaal badan dadaalka aad ku dadaalaysaan xoolihiina waktigooda say ugu dadaalahayaan idinka dadaal badan dadaalka aad ku dadaalaysaan xoolihiina cumar bn cabdilcaziiz waxaa laga sheegay wuxuu yidhi ina alleyla waannahaara yacmalaana fiika facmal fiihima habeen idhraar waa kugu shaqaynayaan adig ku dhex shaqayso habeen ku soo maray dharaar ku soo martay wax bay kaa goynaysaa waktigaad waa tagay dadka qaar waxaad arkaysaa in aad ugu dadaalayaan shabaabnimadooda inay joogto aad ugu dadaalayaan waxba ismarmarinayaan magaciisa muxuu ahaa gerkay xiirayaan ciraday diidayaan aad bay ugu dadaalayaan jumnastic samaynayaan waa ku dadaalayaan laakiin xaqiiq ahaan waad dareemaysaa ninka sanad kasta haddii sanad kaa maqan 5 san haddii kaa maqanaado qofkii inuu isbedelay asagu wuxuu moodahayaa inuu arrintiisa kaamil tahay sidii tahay laakiin alleylu wannahaaru yacmalaana fiika facmal fiihima habeenkii dharaar waa kugu shaqaynayaan adan ka dhex shaqayso wax bay kaa goynayaan caadi ma tihid anugu markuu dhasho bal u fiirso anugu markuu dhasho keli u fiirso anugu aad dhashay ayaamihii hore waa cad oo hilib ah la qaaday la dhigahayo bas intaa kama ziyaadsan waa ooynaa keli waa dhaqaaqahaya waa isgedinaa anugii anugu waa gedista la leeyahay waa lagu qoslaa anugii waa soo fadhiisanaa anugii waa kaasoo waa istaagaya socoduu bilaabahaya macnaha adagna arrintaas nafsi shay adagna wax baa kaa goyhaaya mase wax baa kugu darsamaya intaad adaga shabaabnimadaad ilaa 40 sano ka gaaraysid wax bayaan xoog baad leedahay laakiin marba haddaad 40 gaartid waa si naaqus hoosaad u socotaa siday dhahayaan dadka qaar alwaqtu ka sayf in lam taqdachu qadacak waqtiga sayf oo kale waayo haddaad ku hormarin goynin ka faa'iidaysin oo ku goynaya oo ku dhaafaya
حسبنا الله ونعم الوكيل. dadka salafka saalix la dhaho dadkii fiicnaa naga horeeyay muslimiintii horeeyeen saxaabadii dadkii la xiriiray waxay dhihi jireen waxay ahaa jireen kuwa aad ugu dadaala waqtigooda ku dadaala sidii ayaga ahwaashooda u ahaan lahayd maalin kasta maalintii kale inay ka sii fiicnaato inay ka guuraan xaalad wanaagsan xaalad ka sii wanaagsan inay u guuraan ayay aad ugu dadaali jireen raximahumullahu tacaala. cabdullaahi ibnu mascuud saxaabadu ka mid yahay saxaabadu waa weyn cilmiga iyo fadliga iyo dadaalka ayuu ka mid yahay wuxuu yidhi kama shalaynin wax aan ka shaleeyey ma jirto sidaan ugu shaleeyo maalin qoraxdiisa igu soo baxday oo ajashayda naaqustay waqtigay naaqusay oo anaga camalkay aan ziyaadin sidaan ugu shaleeyo maalin qoraxdiisa igu soo baxday oo cumrigayga naaqusay oo anagu khayr aan ziyaadsanin wax camalkay aan ziyaadin sidaan ugu shaleeyay wax kale aan ugu shaleeyay ma jirto yiri radiyallahu ta'ala anhu arda. laba nicmo ayaa ku hortaala walaal qofka khaasatan dhalinyarada ah laba nicmo ku hortaala labadaas nicmo nabigeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiis saxiix ah oo bukhaari wariyay nicmataani maqbuunun fiihima kathiiru min annaas as-sixatu wal-faraaq laba nicmo dadka qaar way ku kadsoomayaan waa lagu kedinayaa caafimaad iyo faraaq labadaas ku dadaal markaad caafimaad qabtid inaad wixii ku anfacahay ku shaqaysid iyo markaad faraaqo leedahay faraaqadaad inaad wax wanaagsan aad ku shubtid labadaas arrimood ku dadaal labadaas arrimood waa laba nicmo ah oo rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam tilmaamay oo ku sheegay dadka badi in lagu kediya oo ku kadsoomaan oo bilaash u dhaafto horta faraaqa ma suurabaysa weligaad inaad faraaq noqotid maba dhici kartid haddii waqtigaada faaruq yahay oo adiga wax ku anfacahay adduun iyo aakhir wax ku anfacay aad ku shubin ilaa waxaad garan doontaa waxaad arkaysaa faraaqi asaga waa buuxsamayaa waxbaa buuxinaya haddaad khayr ku mashquulisid fadaak haddaad khayr ku mashquulinin ilaa shar ayaad degaysa meesha bani aadamkan shaqo la'aan inuu joogo ha ka yaabin abadan bal u fiirso naftaada jarab bal meel fadhiista adii saaxiibkaada inaad kitaab soo qaadaan mase khayr ka sheekaysaan mase wax idin anfacaad ku shaqaysaan alxamdulilah waad aamusteen soo maaha lama aamusnaanahay wal hebel ka waran sidaas u ahaa kii waalna khalaas xanun qofkii dhexgalay beena la dhexgalahaya caytan dadkii la caynaya la dhexgalahaya mashaakil sidaas oo kale caafimaadkan weligiisa kuuma joogahay caafimaadka weligiisa kuuma joogahay fudeedkan shabaabnimadan caafimaadkan oo qofka hataa ismoodahay inuu duuli karo caafimaadkan ma joogahay dadka odayaasha warso fiiri waa kaas qofku waxaa waayay bedelkii laba lugood lahaa saddex lugood u yeelanahaya aayar u soconahaya saddex lugood ayuu yeelanaya waxaa way dhabarkii xanuunahay jilbihii xanuunahayaan waa kaasoo hurdadiis isma raacayso cunto si fiican ma cuni karo meesha raba ma gaari karo hay caafimaadkaas markaa had aad haysatid waa kaa tegi doonaa ka faa'iidayso intii kaa tegin khayr ku camir faraaqada khutuuradeedu waxay aad u sii daran tahay markii qofka shaab yahay markaad shaab tahay faraaqana tahay aad iyo aad ugu digtoonyo weyn waa inaad ka qaadataa markaad adaga faaruqna tahay shabaabna tahay dadka soomaalida oo hadda dhulkaa joogo waxaan ku irshaadinaynaa waxaan arrintaas inay ugu faa'iidaystaan waqtigooda qiimaha badan qaaliga ah qofkii shaqo aan haynin war shaqo weyna ku taalla
shaqo aan la koobi karin aan dhammaan karin habeen iraar aan la dhammayn karin aan la gaari karin aa ku taala diinkaada maxaad ka taqaanaa diinkaada maxaad ka taqaanaa mid qof kasta anaka naga mid ah wuxuu leeyahay qur'aankan jecelahay ilaahay kitaabkiisa ilaahay diinkiisa waa kaas ilaahay diinkiisaan difaacayna ilaahay diinkiisaan wax ka qabanayna u gargaarayna aan leenahay laakiin waxaad arkaysaa dad fara badan oo dadkaa ka mid ah khayrkaa sidaa u jecel juz'ama hataa ma yaqaanaan juzu tabaarak hataa ma yaqaanaan 40 xadiis oo axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka mid ah hataa ma yaqaanaan kutubaha yar yar oo loogu soo talagalay oo dadka mu'miniinta ah waqtigood inay ku ilaaliyaan oo adkaaru sabaax wal masaa la yiraahdo ma garanayaan طيب intaad waqtigaada hurdo qaab daran oo dhinacaan loo gadisanahay oo waa kasoo laga yaabo hata waqtiyaalka salaada inay halayso laga yaabo qofka intuu ku dhumin lahaa ma samaayaan maxaa la sheegay bbc maxaa sheegtay oo yan hadal been ah oo waqtiga lagu dhumin lahaa naftaada ku xir meel ku xir waqtigaada nidaami ugu faa'iidaysa waqtigaada waxay khayr kugu soo noqonahay qur'aanka ilaaha subxaanahu wa tacaala qur'aankan laga dhargaynin aan dhammaanaynin tacliintiis aan dhammaanaynin haddaad adiga laga yaabo kulligiis aad xifdisid macnihiis ilaa yowm alqiyaama aad gaari karin ayaa ku hor yaalla isku mashquuli khayraadka u degdegso waqtigaada qiimihiisa garo intiiba aad ku dadaali kartid waqtigaada inuu buuxo khayr ku buuxo ku dadaal ka digtoonaaw sidii rasuulkeenu yidhi calayhi salaatu wassalaam oo ka magan galay allahuma inni acuudu bika min alhami waalxasan wa acuudu bika min alcajzi waalkasal caajisnimo iyo wahinsashiyo ka digtoonaaw nabigeena calayhi salaatu wassalaam ayaa ilaahagiisa ka magan galay ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وحيالها الله جعليه أدكتما أدكدقا ميل ألا ميشتهين الله إذن لإيمان دونه إله سبحانه وتعالى وحكا استقادركم يهي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدد للمتقين أدكتما أترتما ilaaha maqfiradiisa iyo jannadaasoo samad iyo ardada bilaarkeeda ay yihiin walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida walakin liyabluwakum fima aataakum fastabiquu lkhayraat ila allahi marjicukum jamiica fayunabbi'ukum bima kuntum fiihi takhtalifuun khayraadka u dhagtama waxa alla jecel yahay u tartama allaad u noqon doontaan وهي الله سبحانه واحد أدونك كسو عمل فشين الله وإذن شيغي دونا واحد اسكو خلاف الجرتين الله وإذن كلا عدين دونا نبينا عليه الصلاة والسلام أمديس وحفر الجري إني خيراتكو ودك دقان عملك وناكسن أنا أودك تمان أيو فرجري أنت قفك كسو دقين فتنيال إيو وحيالها خير كدتك كهر استاغو أنت سو دقين كهر أي نبينا عليه الصلاة والسلام أمدي سفر جري إني خيرك ودك دقان وهو ده جري حديث أو درجة أن حسن تهي بادروا بالأعمال سبعا أعماش كله هرمرة أفر سبعا تضب الشيء تضب الرمود كله هرمرة أعماش خيرك أعماش خيرك بوب صدع تضب الرمود كهر هل تنتظرون إلا فقرا منسيا فقيرتنما wax kasta ku xilmaansisid ma ahayn wax kale miyad sugaysaa qof iska ladanaad aheeday markaasa faqiirtinima alla subxaanahu wa tacaala kugu soo ibtileeyey markaasa wax kasta hilmaantay aakhirada hilmaantay adduun hilmaantay musiibadaas oo kale lagugu imtixaanahay oo kale miyaad sugaysaa aw ghinan mutqiya qofka xaaladii sidii dhaxdhaxda iska ahayd markaasa alla xoolo ku soo furay markaasuu kibriyey taas oo kale miyaad sugaysaa aw maradan mufsida mase jiru kugu soo dhacdo oo jirkaada baxalayso oo markaas adiga aan cibaadaysan karin khayrka ku amal fali karin maahan miyaad sugaysaa aw haraman mufannida
masduqownimo oo qofka yafyaf noqdo oo wax kala garan waayo miyaad sugaysaa aw mawtan mujhiza geero oo waa kasoo ku diyaariso degdeg kugu qaado miyaan maahayna wax kale miyaad sugaysaan aw iddajaal fasharu ghaa'ibin yuntadar war dajaal maahayna wax kale miyaad sugaysaan wax la sugo kan ugu shar badan waayo dajaal 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 waxaan jeclahay culammada qaacada buuxisa dhulka khaasatan dhulka waddamahan ku nool dadka inay aad iyo aad ugu sheekeeyaan ay baraan dajaal dajaal in wax badan laga akhriyo ayaan culammada ka codsanahayaa waayo waxaa la sheegaa dajaal calaamadihiis waxaa ka mid ah markuu imaanahay manaabirta masaajidaha mambaryaalka aan laga sheegaynin zaa'id laga sheegaynin sidaasaa dadka qaar culammada qaar dhehda waa la hilmaamaa markuu soo dhow yahay imaanshadiisa waa la hilmaamaa fasharu ghaa'ibin yuntadar wax la sugo kan ugu shar badan nuux ayaa ka digay calayhi salaatu wasalaam ummaddiis ugu digay nebi adduunkan soo maray oo dajaal ummaddiis ugu digin ma jirto nebigana calayhi salaatu wasalaam axaadiista oo dajaal ummaddiis ugu digay waxaa axaadiis mutawaatirah ayaa lagu magacaaba mutawaatir axaadiis oo shubuntay calaamadihiis haddaad fiirfiirisid dajaal calaamadihiis haddaad fiirfiirisid zamanka imaanahay zamankan amuu yahay casrigan amuu yahay ayaad isdhihi karta wallahu aclam ninkaas daabadu ku imaana dameer rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dameeru ku imaana dameer oo labadiis dhagood u dhahayso 40 dhudhun degdegiisu wax caadi aan ahayn rasuulku ku sheegay alayhi salaatu wasalaam degdeg yaa badan magaalo kasta adduunka jirtin waa ku dega waa ku dega haddaad fiirisid arrintaa inay diyaarado ninkan ku imaan doono zamankan inuu ku imaan doono ayaa aad ugu dhowdahay maxaa nabigeena salaam soo degitaan uu sheega soo degitaan wuxuu sheegahayaa surca oo zaa'id ayuu sheegayaa wuxuu sheegaya weynan oo zaa'id ayuu sheegayaa waxaa kale intaas si dheeraad ah meelihii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu ku soo degi doono oo tilmaamay hadda waxaa laga dhigay erboora madiina meesha uu imaanahay madiina almunawwara madiina iyo maka maahayna meel asaga aan tegaynin malaha adduunka meel asaga ku degaynin malaha maka iyo madiina maahayn malaa'igta ayaa isku wareejinaysa malaa'igta ka reebaysa labadaas meelood ma geli karo keli madiina meesha uu imaan lahaa meesha ku degi lahaa erboor oo waa kasoo qasr ayaa laga dhisay duqii meeshaas xukumahay ayaa sar weyn oo erboor leh wax kasta leh ayuu ku dhisay marka waxaa dhici karta ninkaa inuu zamankeena inuu imaado culammada ninkaa dadka ha ugu sheekayso wixii loogu fakana lahaan dadka ha ugu sheekeeyaan aw isaacatu saacadda miyaad sugaysaan fasaacatu adhaa wa amar waa ku musiibo kasta dhan waa ka weyntahay iidan waxaa lagaaga baahan yahay walaalkay muslimka ah walaashay muslimadda ah inaad ku cibro qaadatid waqtigu ku soo maray habeenaha ku soo mareen dadka ku soo mareen maxaa yeelay laxdad ma jirto ku soo marayso ilaa koonkan wax baa ka dhaca isbeddela dhaca wax baa dhaca ummadaa kor loo qaada ummadaa la baabi'inahaya ummadaa kor loo qaada ummadaa la helaagahaya qofaa ilaahay cizaynahaya qofaa dulla lagu ridahaya ummadaa mulki la siinaya ummadaa laga siibahaya wax baa dhalanahay wax baa dhiminahay wax baa tanaad laga dhigahay wax faqiir laga dhigahay cibro qaadasho dadkii tageen lagu cibro qaato 20 sano ka hor ayaan tagay dhulka sacuudiga maka 7 sanaan ku noolaa dadkii markaasaan igu horreysay reer magaalnimo dhab ah wax kala faham
sagaal iyo toban sano meelahaasaan jiray markaasaa wax kala faham igu horreeyey tacliintana markaasaa igu horreysay oo tacliinta oo iskuulaha iyo madrasayaalka la galo dadkii waqtigaas aan bartay odayaal ahaayeen da'deedii oo kale ahaayeen oo aan garan jiray isku meel aan ku nooleen rag iyo haweenba lahaayeen maanta dadkaas wax yara ka nool dadkii aan xisaabahayaa waan tirinahayaa hebel 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 dadka waxaan ku noolanaa meel ribaad masaajid ayaana kulmin jiray meelaan ku wada nooleen markaasaan yaabaan tacajuba yani waqtigaa yar waa 20 sano 10 sano gudaheedaan ayaan joogaa meesha la yidhaahdo Mandheera 10 sano dad wahii dhintay oo aan garanahay oo xigtadayda ah dadkii anaga aan ku dhex noolahay oo magaalada degan ah wax la koobi kara ma bal haddaad ahaan lahayd markaasaan leeyahay naftay aan u leeyahay haddaad kuwaas qof ka mid ah haddaad ahaan lahayd maanta maxaad tari lahayd alla subxaanahu wa tacaala haddii adaga gooni lagu ogeysin lahaa waqtigaasaad dhimanaysaa wax bay ahaan laheeday laakiin waxaa weeye dadka kedida looga imaanahayaan shilka ku dhimanayaan diyaaradaha la dhacaysa badda ku qarqoomahayaan ayagoo jiifan habeenkii laga qaadahay ayagoo xumad ku dhacaysa dhammaanahayaan dadkaas un baan dhamin lahay waxaan la yaabaa kasii yaab badan odayaal iska dhaafee dadkii oo isku jaamacad aan ahayn oo isku kulliyad laga yaabo aan ahayn oo dhalinyaro ahaayeen jaamacadaha soo dhameeyeen culamo ahaayeen oo isku da aan ahayn meeqaa qofaa dhimatay sidaan aan u dareemahay ayaad qof kasta u dareemi karaa hadduu badax midig fiiriyo dadkii qaraabadiisa fiiriyo dadkii asaga garan jiray fiiriyo qof kasta saas oo kale u arki karaa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقتها سداد ugu faa'iideysatid waqtigaada nidaamih waajibaadka aad samaynayso aad la imaanayso acmaash aad qabanayso waa in ahaadaan acmaal timetable leh oo jadwal leh waa inay ahaadaan diini ha ahaato mise dunyawi ha ahaato maxaa yeelay haddaad acmayn waqtigaada nidaaminin waxaad arkaysaa wax zaa'id muhim aan ahayn in adiga waqtigii aad u badiso oo wax muhim ah aad iyo aad zaa'id muhim ah aad ka tagto wax sidaa loo baahneen inaad ku mashquul ku noqotid wixii muhiimka ah khatarta ah aad ka tagtid ayaa dhici karta haddaad waqtigaada nidaaminin waqtigaada haddaad 24 saac maxaan qabanayaa saacadaas qur'aanan akhrinayaa saacadaas waxba iyo xadiisan akhrinayaa saacadaas shaqadiyaan u kalahayaa saacadaas hiblan ziyaaranahaya maalan hibley haddaad waqtigaas sidaa yeelid waqtiga waxa aad moosi waqtiga waxa inuu ku yaalo waqtiga waxa waa gurmaya sidii lagu sheegay dharaara soo marisay been rayso waa tagay waqtiga waa socda mana soo noqonahay waxa ku yeel aad sheegayso waa maxay maalinkaas waa jafmayaan حديث النبي عليه الصلاة والسلام وريي أو صحف إبراهيم خليل أو كشيء وهو يري وها كقرنا صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وها كقرنا ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له 4 ساعات نينك عاقل كأه وها لو باهي هي هديب عقلي سجوجو مجنون أن أهين إن 4 ساعات إنه لهذا أيا لو باهي يري كو ساعات ربكيس ليش كيسنا سبحانه وتعالى ساعد ربكيس لا sheekaysanahay waa inuu lahaada saacatan yuhasibu fiha nafsuhu saacad oo naftiisa xisaabahay maxaan qabtay maxaan sameeyay maxaan wanaajiyay maxaan xaleeyay labadaas arrimood oo hadiiska hadii sheegahay ayaan ka dhimanay dadkeena zamankeena walaalayaal dadka ahlu diinkan sheegaya ma sheegaya
anaga waxaan la hadlayaa dad ilaaha subxaanahu wa tacaala rumeeyeen oo diinkiisa qabsadeen oo diinka ku dadaalkiisa ku hahaayo oo diinka murugtiisa hay ayaan la hadlayaa maahayna lama hadli haayo dad kale